waxaan saaka kormeel ku nimi hay-adda Sodma waxaana u mahadcelinaynaa guddoomiyaha hay-adda iyo shaqaalaha hay-adda oo runtii diyaar garow ugu jira duruufahan dalku ku sugan yahay iyo saadaashaba waxaan saaka aniga iyo wasiir dowluhu wasaaradda arrimaha gudaha mujtamaca Soomaaliyeed iyo inta danaysa danaha Soomaaliya ama gacanta ka geysata aan digniin iyo dhiilo ugu gudbinaynaa inay jiraanin duruufo la saadaalinayo oo fatahaadda iyo abaaraha iyo subrileno dhammaan waxaasu inay jiraan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nooga sahlo oo sida loo saadaalinayo iyo sida wax loo filayo si ka dabacsan oo ka naxariis badan ilaahay inuu muxuu ahaa amuuraha iyaga u hagaajiyo runtii waxaan dadka Soomaaliyeed oo ilaahay wax siiyey qurba joogta iyo hay-adaha gacanta naga siiya ee dowladda Soomaaliyaba ugu muxuu ahaa u soo jeedinaynaa in arrimaha diyaar loo ahaado oo gacan laga geysto oo ummadda Soomaaliyeed aan filayno arrimahaasu inay waxyeello u geysan doonaan in looga diyaar garoobo oo hay-adda iyo dadka ku howlan arrimahaas in gacan laga siiyo waxaan kaloo iyadana soo jeedinaynaa hay-adaha iyo dowladdaba arrimaha isbarbaryaaca ah marka duruufahanu yimaadaan qoloba meel muxuu ahaa ee wax ka qabato arrimaha in laga daayo dibna aysan u jirin oo coordinationka iyo shaqada toosan oo arrintaa wax lagaga qabanayo si waxtarkeeda iyo faa'iidadeeda loo arko in loo daayo hay-adda oo gacanteenu ay noqoto hal gacan waxaan iyadana ka rajaynaynaa guddiga la dhishay oo santuuqan inuu wax badan soo kordhiyo oo hawshaas la galo annagoo uga mahadcelinayna ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha fikraddan saliimkaa ee la rabo in kor loogu qaado duruufahan aynu la noolnahay waxaan kaloo iyadana u mahadcelinaynaa doonyaha halkan yaalla oo labada ah oo halkan aan ku soo booqannay ganacsatadii bixisay oo runtii iyagoo danaynaya inay qayb ka noqdaan arrimahan la filayo oo daadadka iyo xaaladaha inay muxuu aha gacan ka geystaan dadka kaloo Soomaaliyeedna oo ilaahay wax siiyey iyagana waxaan ka rajaynaynaa inay qayb ka noqdaan markii gacmuhu isgaaraan oo la isu naxariisto oo la isu naxo oo gacmaha muxuu ahaa gacanba waxay hayso gacanta ka tabaryar u gudbiso khayraadkuna waa inoo badanayaa dadkeena qulubtooda iyo wadajirkooda iyo muxuu ahaa qalbisimidooduna waa hagaagaysaa aad iyo aad baan idinku mahadinayaa hay-adda iyo inta ku howlan marka